waxay keeneen inay wasiiradii wasiir baa hadda la xidhay maxaa lagu xidhay waa su'aal wasiirkii amniga oo hawl shaqo u jiray baa intii loo yeedhay oo leeyahay kulan baan rabnaa inaan kula qaadano oo meelo kale looga yeedhay baa markuu soo degay baa la xidhay maxaa lagu xidhayaa waxaa jirtay maxkamad warqaday mar hore qortay oo la yidhi dad baa loo haystaa shabaab iyo waxay ahaayeen ba isku jiro la yidhi dad baa la dilay waa laga soo tegey 4 bishii abriil baa maxkamaddu waxay qortay ninka in lagu waayay dambiyada wasiirka loo haystay waa lagu waayay lagu waayo wasiirkii isagoo shaqadiisu u tocdo magaaladii maray waa la qabto waa la xidhay waa lala hadlay isaga wuxuu ku yidhi waran in xidhan baan wax igala hadlaysaan waa ma waxaa loo yeedhay dad qaraabadiisa ah intii lala hadlay baa kaala imaadaan ka wada xaajoonay maxaan ka xaajoonnaa waxaa la yidhi kow waa inaad ogolaataan si aan u sii dayno wasiirka Jubbaland inaad tirahdaan dhismaheeda ma aqoonsanin way burburtay laba in doorasho lagu qabto goboladaas gedo saddex ciidamada la hayo in la soo wareejiyo markaas waxaan samaynaynaa heshiiskan nala gashaan baan isaga soo daynaynaa waxaa la yidhi heshiiskan uu idinlama gali karo dawladda Jubbaland la yiraahdo way jirtay qabiil meesha kuma shirinaysan Soomaaliya maamulka soo dhisatay waxaan aqbali karnaa ma isagii soo daaya Jubbaland kala hadlo waxaad kala hadlaysaa wasiir xasaanad leh oo la yidhi dambi waa lagugu waayay oo iyagu cadeymaha waa la cafiyay waa lagugu waayay ay warqadda qoreen baa inta lala maraya intii loo yeeray niman aqoonyahan oo jufadiisa oo loo yeeray baa inta lagu la hadlay waa ceeb waa waxaan saliya raad lahayn waa wax meel loo qaado aan lahayn waxa laga fikirayo waxa laga hadlayo ma dawladnimadii Soomaaliya waxay gaadhay in noocaas loo dhaqmo ma waxaan oran karnaa magafa ka dilay magafa waxaan ku maqli jiray saxaraha Liibiya niman intay dadka qaadaan isxambaana oo magafa dawladnimadii Soomaaliya ma magafa isugu noqotay wax sax ma waxa ku xigay odayaal dhaqan baa is abaabulay oo jufo ahayn oo qabiil ahayn oo Soomaaliya oo gobolka Gada ka tagay waxay dhahan madaxweynuhu haddii wax dhaqan Soomaaliyeed uu jiro dad wax ka dhaxeeyaan odayaal baan nagu ixtiraam haddii dawladnimo tahayna nagu ixtiraam arrintan nagala hadlo wasiirka hadalku wasiir madaxweynuhu ku yidhi waxay ahayd ma aqbalayno Jubbaland dhismaheedii ninkaasi wuu xidhan yahay Amnesty International baa haysata Amnesty International wadan dagaal sokeeya ka dhacay burburka noocaas ku jiro Amnesty wax ka qabanaysa wax ka og maxay tahay Amnesty wax ka qabata Cabdiraxmaan Cabshakuur shalay wiilashii la socday la leeynayay Amnesty wax ka qabata dadkii beedhaba lagu laayay ee lagu dalacsiiyay ninkii ilaha xoog baan leenahay waan leenaynaa hadda taliye ciidan looga dhigay what is the Amnesty hadday maanta wax mudanaysa ma hoggaanka dawladda federaalka yaa u baahan Amnesty sharcigeedu hadduu qabanayo inuu soo keeno Amnesty uu ka adiga sharcigeedu odayaashii lug bay sayidka kaga soo lugeen ilaa madaxtooyo lugna way ku noqdeen xataa waa lagu ixtiraamay in la qaado leeyahay hoteeladooda la geeyo away Soomaalinimadu away dawladnimadu away waxa laga hadlayaa waxaan oran karaa wasiir Cabdirashiid dambi uu leeyahay kuma xidhnay wuxuu ku xidhan yahay Jubbaland kaale nala burbur isaguna wuxuu yiri waan dhisay waxaan dhisay ma dumin karo waxa kaliya lagu hayo waxaan u baahanahay beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed kulligood inay arkaan waxa maanta villa Soomaaliya ka socday Soomaaliya inuu dib ugu celin doono dagaal sokeeye mid qabiil mid beeleed mid kala fogaansho iyo inta dhibaato inuu kulligii keeni doono waxay yiraahdeen waan cuna qabataynaynaa Jubbaland garoomadan xidhaynaa baa leeyahay oo maxaa la xidhayaa diyaaradda Dhobley ka imanaysa ee Kismaayo imanaysa 30 daqiiqo soconaysa ee $80 laga qaadanay waxay dhahaan waa inay xamar timaado dan Kismaayo timaado Kismaayo markay ka baxayso xamar tagto Dhobley timaado $230 lagu charge gareeyo 2 saac iyo badhna ay hawada ku jirtay socoto waxay keentay islaantii umusha ahayd iyo tii foolatay sakaraadka iyo qofkii lala soo cararayay intuu waayay inay maanta jiraan kiisas xeer ilaalintu ay soo gudbin doonto madaxweyne farmaajo iyo wasiiradoodu waxa ay geysteen ijraamka ay geysteen inay dadkii ku baaba'een caafimaadka aadi lahaayeen
iyo tallaabooyinka qaadanaya dhakhaatiirtooda maanta dadna ay ku dhinteen wadada dheer intay soo qaadeen roobka oo shabaab ay dhibaato ugu filaayeen inay maanta dad ku baabeeyeen u baahan tahay kuwa xuquuqul insaanka u doodaya maxkamadda caalamiga in loo gudbi doono biilashaan aan diyaarin doono haddii la yidhaahdo dadka wax ku gaadheen arrintaas